أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل توكلت على الله وكفى بالله وكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لهي دمانتي وإذ السلامية وحرجينا أن دي عافمات قبطان ولا لهي أني وحانا هي أميرة محمد حداد قرنين جلنكات كو عصبتها بليسو دواو channel كان وحويا channel أنا قلت لقل إن dadka walaalahay oo Soomaaliya oo Ingiriiska oo aad ugu dhib qaba in Ingiriiska ku bartaan insha Allah wala anigu aan ugu macnaynayo luqadda Soomaaliya insha Allah walaalahay soo dhawaada dhamaantiin insha Allah haddaad garanaysaan dad u baahan please gaarsiiya haddaan subscribe gareyn channelka please subscribe garey haddii aadan like saarin insha Allah please oo aad ka hesha casharka please like saar insha Allah aad baad mahadsantiin walaalahay soo dhawaada insha Allah maanta casharka ugu horeeyaan bilaawin waa maxay waxa weeyaan sida aad qofka isu bari lahayd ama qofka sida aad u salaami lahayd ayaan baranaynaa insha Allah dhammaan walaalahay insha Allah waxaan ka bilaaweynaa lesson 1 haddii la yiraahdo insha Allah walaalahay casharka ugu horeeyaan ka bilaabay lesson 1 maanta wuxuu yahay maxaa yiraahdaa number A and B wada hadlaya waa isbaranayaan insha Allah sida aad ula hadli lahayd weeyaan insha Allah sidaad ogtihiin marka ugu horeysa dadka markay isbaranayaan maxay isticmaalaan tenniska la dhahayo verb to be state verb to be bay isticmaalaan lesson number 1 casharka maanta wuxuu ku saabsan yahay isbarasho sidaad ugu sheegi lahayd qof aad tahay ayaan ku baranay walaalahay lesson number 1 maanta waxaan ku baranaynaa isbarashada ayaan ku baranaynaa insha Allah marka A and B ayaa wada hadlayo baa ku hormari wuxuu leeyahay what is your name marka labadan guduud aan ka dhigana oo fiirstaan rabaa what is your name marka halkan waxaad arkaysaa kuwan guduudka what's sababtoo kan iyo kan mujada ayda baa laga saaray apostrophe baa la geliyay ismujada so sidana waa waxa weeyaan okay weeyaan sidana waa okay weeyaan marka haddaad sidan baad u akhrinaysaa haddaad sidan baad u akhrinaysaa waa isku mid walaalaya what is your name iyo what's your name what is your name what's your name what's your name yaa walaalay saa ogaad insha Allah magacaaga ama magacaagu mujeda halkan eeda ka qaadaysa iyuda gelinaysa wuxuu noqonayaa magacaagu magacaagu waa maxay okay oo magacaaga waa maxay weeyaan mujeda kuwan insha Allah ama waxaad dhihi kartaa magacaabaad dhihi kartaa ma kasta walaalahay insha Allah waa saa marka B muxuu leeyahay B waxay leed gabar weeyaan my name is Zahra magacaygu waa Zahra ama waxay noqon kartaa waxa la yiraahdaa Zahra yaa walaalo waa isku mid magacaygu waa Zahra ama waxaad dhihi kartaa waxaa la yiraahdaa Zahra ama Zahra kaligeed waad dhihi kartaa markasta looma baahna xataa intaas inaad tiraahdo ko sababta aniga haddaan ku dhaho magacaa ima dhehaysa magacaygu waa inta bas maxaan dhahnaa annaga qofka magaciisa hore ka sheega markasta walaalay marka waa laakiin ingiriiska is a little bit different marka intaba laakiin waa sax intaba walaalay waa sax insha Allah where are you from waa maxay waa qof aadan garanayn wadanku cusub ama si oo taa where are you from dad wuxuu ku sheegay original meeshaad ku dhalatay baa laga hadlay where are you from xagee ku dhalatay markasta walaalay I'm from Somalia ani waxaan ku dhashay Somalia I'm from Somalia halkan I am from Somalia marka I am baranays maxaad ficilkaad baranaysa waa ama tensiyad muxuu noqonayaa verb to be sababta marka ugu horeeyo waxaad isticmaalaysa hadday dhalasho noqoto hadday da'da qofka noqoto qofka shaqadiisa hadday noqoto iyo qofka dareenku dareemi inta waxa jawaabta wuxuu imanayaa oo aan isticmaalna verb to be waa state verb kaas baan isticmaalaya walaalay so halkan I am from adhoosaya meeqa waxaa ku jira waxyaalo badanaa ku jira from waxay noqonaysaa waa preposition marka Allah arab stafa inta ku wada jiro oo macna grammar ah markasta laakiin muhiim ma hadda beginning kooga inaad grammar isku wareersa marka waxaad baranaysaa I am from Somalia ujeeda I am halkan wax ma I am from Somalia walaalay markasta waxaan ku dhashay Soomaaliya
waxaan ku dhashay soomaali soomaali ayaan ku dhashay wayaan marka ee baa hadlay wuxuu leeyahay where do you live 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 waa maxay xagee degan tahay ama xagee ku nooshahay xagee deganta ama xagee ku nooshaya meeshaad deganta ayaad ka hadlaysa where do you live xagee deganta ama xagee ku nooshaya marka here says I live in Canada I live in Canada anuu Canada baan ku noolahay I live in Canada Canada ayaan ku noolahay Canada ayaan deganahay Canada ayaan ku nool inta waa isku mid walaa Canadaan deganahay Canada ku noola inta waa isku mid walaalahaya what city do you live in what city city xataa marna waxaan dhahnaa city we say city what city do you live but city haddaa u barato waa sax weeyaan marka city haddaad tiraahdo city haddaad tiraahdo city ayaa markaad isbeergaraynaysa sahal aad ku fahmaysa city haddaan ku dhaho waxaad malaynaysaa d meesha ka maqlay city tiida wuxuu akhrisan d oo kale laakiin maxaa idhahdaa city haddaad tiraahdo don't worry waa isku mid walaalahay haddii aad rabto sida North America lagu hadlayno waa city city what city do you live in what city do you live in magasta magaaladee ku nooshahay magaaladee ku nooshahay walaalahay magaalada ku nooshahay I live in Montreal I live in Montreal I live in Montreal Montreal waa magaalo Canada ka mid ah insha Allah walaalahay waxaan ku noolahay Montreal waxaan ku noolahay Montreal yaa walaalahay marka waxuu leeyahay where did you live before and where do you live now where did you live before and where do you live now where do you live now marka walaalahay meeshan waa laba sentence la sukeen maxaa isku xiraa an baa isku xiraya markasta oo u dhigmo Soomaali iyo waad marka halkan maxaa lagu weydiinayaa halkan haddaad did fiiriso halkan haddaad do fiiriso waa dareemaysa kan waa maxay wax tagay kanna waa wax present ah markasta walaalahay where did you live before this was complete sentence markasta complete sentence and iyo marka halkan maxaan la weydiin laba su'aal baa lagu weydiinaya where do you live now hore xagee baad ugu nooleed iyo haddana xagee ku nooshahay xagee baad ku noolaan jirtay haddana xagee waa ku nooshahay markasta walaalahay marka ka hor xagee deganayd markasta iyo haddana xagee ku nooshahay fiiriya ka hor xagee degan waxaan dhihi karaa ka hor xagee ku nooleed haddana xagee ku nooshahay waa la dhihi karaa Soomaali inta waa isku mid kasta walaalahay ka hor xagee deganayd iyo haddana xagee ku nooshahay markasta walaalahay waa saa insha Allah okay B I used to live in Toronto مجد سان أخرى مجد تورونتو لكن أنا كان محننا تورونو يا ولا تورونتو يا تورونو هذا مش لبضب واسكمت ما قصد ولا I used to live in Toronto B I used to live in Toronto or Toronto لبضب واسكمت ذا مقشور عليه and now I live in Montreal I live in Montreal so I used to live in Toronto ayaan deganaan jiray ama ku noolaan jiray and now haddana I live in Montreal ayaan deganahay markasta walaalay waa saa insha Allah marka Soomaalian arka waxaan ku noolaa Toronto waxaan ku noolaa mujada hadda ma noolaa waa wax tagay waxaan ku noolaa haddaan ku dhaw waa wax soo dhamaaday waxaan deganaan jiray waa mujada haddana waxaan ku noolaa mujada Soomaali waxaad ku garanaysaa erayga noolahay waa waqtiga hadda la joogo noolaa waa wax soo dhamaaday وقت soo dhamaan markasta walaal saa u kala fahma kan waa past of Soomaali kan waa present waxaan ku noolaa Toronto oo Toronto haddana waxaan ku noolahay Montreal markasta walaalay marka waa ka dadkiina af Soomaali aan garanayn sida ogaada noolaa waa wax soo dhamaaday noolahayna waa waqtiga hadda la joogo yaa walaal insha Allah waxaan ku noolaan jiray mjada waxaa dhigi kartaa waxaan ku noolaan jiray Toronto haddana waxaan ku noolahay Montreal waa isku mid Soomaali mjada waxaad kaloo dhihi kartaa waxaan deganaan jiray Toronto haddana waxaan deganahay mujeda deganaan jiray deganahay mujeda this is past weeyaan this is what present wax tagay iyo wax hadda ah mujeda wax tagay iyo wax jooga
waxaan deganaan jiray Toronto haddana waxaan deganahay Montreal markasta walaalahay marka waa saas walaalahay I hope inaad fahanteen casharkan insha Allah walaalahay intaasaan ku ekeenaya casharka labaad socda insha Allah khayr baa idin rajaynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu